السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. داودال كسر دوادا برامجك فلانقينتا عيارها waxaynu ka eegaynaa kulamada maanta oo sabtiya la ciyaaray horyaalka Ingiriiska. kulanka ugu horeeyay waxa uu dhaxmaray kooxda Aston Villa iyo kooxda Everton, balse kooxda Aston Villa ayaa ku guuleysatay 2-1 kaga badisay kooxda kubadda cagta ee Everton. Aston Villa ayaa kulanka ugu horeeyay horyaalka waxa guuldaro ay ka soo gaartay kooxda Bournemouth ay u safartay, balse guusheedii ugu horeysay ee xilli ciyaareedkan horyaalka ay heshay kulankii labaad ee ciyaartay xilli ciyaareedkan iyadoo 2-1 kaga badisay kooxda kubadda cagta ee Everton. waxa uu dhaliyay Danny Ings, sidoo kale goolka labaad waxa uu dhaliyay Buendia. daqiiqad kadib kooxda Everton ayaa gool heshay, waxaan u dhaliyay Digny 87 daqiiqo markii mareysay. saasina ciyaartu soo gabagabowday waxaana guusha ay ku raacday kooxda kubadda cagta ee Aston Villa. kulamo kale ayaa la ciyaaray saddexda markii xagga Ingiriiska ahayd, shanta galabnimada ay ahayd dhanka Geeska Afrika. kooxda Arsenal ayaa garoonkeeda Emirates ku soo dhaweysay kooxda kubadda cagta ee Leicester City. Arsenal ayaa ku badisay 4 gool iyo 2 gool. kooxda Arsenal goolkii koowaad wuxuu dhaliyay Jesus, isla 10 daqiiqo kadib Gabriel Jesus ayaa goolkii labaad dhaliyay, isagoo noqon Gabriel Jesus ayaa Arsenal u dhaliyay labadiisii gool ee ugu horeeyay tartamo rasmi ah. kadib ciyaarta markii la isku soo noqday kaambiyada dambe, William Saliba ayaa 53 daqiiqo markii mareysay ciyaarta wuxuu iska dhaliyay gool loo yaqaan own goal ama gool otreta ah. Xhaka ayaa isla markii 2 daqiiqo kadib 55 daqiiqo markii ciyaarta mareysay dhaliyay goolka Arsenal ee saddexaad, taas oo ciyaarta ka dhigay 3-2, balse 74 daqiiqo markii mareysay Madison ayaa gool u dhaliyay kooxda kubadda cagta ee Leicester City. ciyaartoo 3-2 mareyso, Martinelli ayaa isla daqiiqad gudaheed ka jawaabay 75 daqiiqana u dhaliyay gool kooxda kubadda cagta ee Arsenal, taas oo ciyaarta ka dhigtay 4 gool iyo 2 gool. ciyaarta ayaa kusoo ilaatay 4 gool iyo 2 gool ee kuwa awood sheegatay kooxda kubadda cagta ee Arsenal ayaa badisay ciyaartii labaad isku xigta xilli ciyaareedkan. kulankii ugu horeeyay waxay ka badisay kooxda kubadda cagta ee Crystal Palace ee kaga soo badisay garoonka Crystal Palace ee la yiraahdo Selhurst Park. Arsenal sanadkan waa cadar ma dhigi doontaa. sidoo kale kulamada la ciyaaro waxaa kamid ahaa kulan dhaxmaray kooxda kubadda cagta ee Man City oo 4-1 uu awood sheegatay kooxda Bournemouth. Man City ayaa kulankii hore kusoo badisay 2 gool iyo waxba. hadda halkana sidoo kale waxay garoonkooda Etihad Stadium kaga badiyeen kooxda Bournemouth ayagoo ku badiyay 4 gool iyo waxba. goolka ugu horeeyay wuxuu dhaliyay Gundogan, De Bruyne ayaa goolka labaad dhaliyay, sidoo kale Phil Foden ayaa goolka saddexaad dhaliyay. ciyaartu ka dhiman 10 daqiiqo waxaa gool otreta iska dhigay ciyaaryahanka liidada Lerma ee u ciyaara kooxda kubadda cagta ee Bournemouth. saas oo tahay kooxda Man City ayaa hadda u muuqata ama u soo carfaya horyaalka Ingiriiska, maadaama ilaa hadda wax goolan laga dhalin, ayadana ay dhalisay ilaa 6 gool. 6 dhibcood ayay leedahay kooxda kubadda cagta ee Man City. sidoo kale kulamada la ciyaaro waxaa kamid ah Southampton ayaa 2-2 baraja la gashay kooxda kubadda cagta ee Leeds. Wolves ayaa eber baraja waxay la gashay kooxda kubadda cagta ee Fulham. ciyaarta ugu dambeysay soo gali doonta 7:00 oo Geeska Afrika waa ciyaarta dhaxmari doonta Brentford oo soo dhaweey doonta kooxda kubadda cagta Man United oo Man United oo loogahay inay guuldaro la daalacaysa barihan. dhanka kale horeynta markii la fiiriyo kulanka horyaalka Ingiriiska, maadaama 2 kulan kaliya la ciyaaray kooxda kubadda cagta ee Man City ayaa 6 dhibcood leh iyadoo 6 goolna leh, sidoo kale Arsenal ayaa 6 dhibcood leh 4 goolna leh. kaalinta labaad ku jirta Newcastle ayaa 4 dhibcood leh, kulan ay badisay kulan barbardhac ay gashay. Leeds 4 dhibcood, Brighton 4 dhibcood, Tottenham 3 dhibcood, walow kooxaha kale aysan weli ciyaarin. koox badan oo dhiman inay ciyaaraan Chelsea iyo sidoo kale Tottenham ayaa ciyaari doona maalinta Brito labadooda. sidoo kale Liverpool kooxda kubadda cagta ee Liverpool ayaa isniinta ciyaari doonta Crystal Palace ayay soo dhaweey doontaa. Nottingham Forest iyo kooxda kubadda cagta West Ham ayaa ciyaari doona maalinta Axadda. waa ku mahadsantahay daawashada barnaamijka. fadlan subscribe channelka hadaad ku cusub tahay, sidoo kale like saar videoga si asxaab fara badan u gaaro. aad baad ugu mahadsantahay daawashada muuqaalkan iyo la socoshada barnaamijka.